bishii ugu dambeysay sanadkii tagay 720keedii ayaa goofii dahla dilay Allah u naxariistay Cabdifataax Cabdullaahi Cabdi oo hadraawi lagu naanaysi jiray isla markiiba waxa goobta ka baxsaday cidii dilka geysatay habeenkii maalintaasi xigtay markii la soo aasay Cabdifataax ayaa bulshada magaalada Laascaano waxa ay bilaabeen barnaamij looga soo horjeedo cidda dilalka u geysanaysa dadka haldoorka ah ee magaaladaasi Cabdifataaxna waxa uu lix ku yahay inta la dilay sanadkii tagay oo kaliya iyadoona 10kii sano ee ugu dambeysay la dilay ku dhawaad 100 qof kuwaasi oo aysan jirin cid loo soo qabtay dadweynaha oo ka careysan falalkaasi isxigay ayaa isugu yimid jidadka magaalada Laascaano iyadoona ay dalbanayaan in la helo cidda dilka geysata laakiin dadkii dhigayay barnaamijka nabadeed waxa ay ciidamada Soomaaliland kala hortageen asaas noob haddii laga hadlayay yaa wax dila ciidanka ammaanka looga fadhiyay ayaa toogtay maalintaas oo kaliya 3 dhalinyaro ah iyadoona ay dhaawaceen ilaa 9 qof oo kale kuwaasi oo kamid ah dadkii shacabka ahaa ee barnaamijyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu arintaasi ugu yeeray isku dhac waa taas ciidanku ay ku laayeen shacabka aan hubaysnay mana uu sheegin cidda bixisay amarkii shacabka lagu laayay awshu halka kuma istaagin maalintii labaad ee barnaamij uu socday waxa ciidanku toogteen 2 dhalinyaro ah iyadoona ay jireen dhaawacyo intaas ka badan dhacdooyinkaasi isku sidkan waxa ay xoojiyeen isu soo baxyada bulshada iyadoona arintu isu bedeshay kacdoon shacab waxaana dalabkii dadku noqday in ciidanka Soomaaliland ka baxaan magaalada Laascaano hase yeeshee Soomaaliland oo doonista shacabka dhasiigaysa waxa ay qaaday tallaabooyin kale iyadoona magaalada laga jaray internetka iyo isticmaalka lacagta danabaysan oo ah tan kaliya ee magaaladan ka shaqeysa ujeedku hadii uu ahaa in kacdoon ku gamaaro wax hoos u dhaca kuma ima internetkii markii uu maalmo maqnaana waxa shacabka oo careysan cadaadis saareen shirkadaha isgaarsiinta oo ku khasbanaaday in ay soo daayaan internetka iyo adeegga lacagta maalintii internetka la soo daayay waxa baraha bulshada lagu baahiyay gaadiid kan dagaal ee magaalada dhexdeeda loo adeegsanayo dadka aan hubaysnayn ee shacabka ah maalmo ayay si joogto ah magaalada uga socdeen tacdiyadaasi laakiin mar waliba waxa xoogaysanaya kacdoonka shacabka hawshuna waxa ay gaadhay in culimadu arintaasi uga hadlaan khudbadihii jimcaha maalintaas waxa markii uu masaajidka ka soo baxay ciidanka Soomaaliland toogteen Sheikh Bidde Faarax Caalin oo markaasi maalmo uu magaalada joogay isaga oo ka yimid dalka Mareykanka intii hawsha socotay waxa dhintay ku dhawaad 20 qof iyadoona ay dhaawacmeen ilaa 40 kaleeto Muuse Biixi oo mar kale hadlay waxa uu geerida shacabka ee siyaaday ugu yeeray arrin kadis ku dhacday iyadoo xaaladdu ay sidaas ku socoto ayaa ismada iyo waxgaradka oo dhameeyay isku mid ah uga dhiidhiyeen dhibka shacabka ku dhacaya waxaana garaad jaamac garaad Ismaaciil oo kamid ah ismada deegaanka oo arintaasi ka dulqaadan waayay uu Soomaaliland ugu yeeray in ay magaalada ka baxdo waxaan leenahay si aan fidma kale u dhicin ka bax magaalada guud ahaan dalka oo dhan ka bax iyadoo fariintaasi taagan tahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi horaantiiba uu sheegay in dadku ka isku dhinteen ayaa waxa xilli habeen ciidanka booliska Soomaaliland ay bartamaha magaalada ku toogteen nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cali Saadle toogashada ninkaasi dhalinyarada ah ayaa baasiin ku sii shubtay xaaladii iyadoo awalba ula booclo loogu tukubayay ciidanka Soomaaliland waxa isla judhiibay sababay dhalinyaro la hayba wiilka dhintay kuwaas iyo shacabkii oo iskarabsanaya ayaa ciidamadii Soomaaliland ku khasbay in ay magaalada banaanka uga baxaan kuna laabtaan goobo ay xiriir ciidan ka dhigteen oo aaga magaalada Laascaano ku yaala maalintaasi wixii ka dameeyay dadku waxa ay ka raysteen ciidankii rasaasta ku furayay iyadoo bulshaduna ay kacdoonkii laba jibaareen ayaa la isugu imanayay goobaha fagaarayaasha ah ee magaalada waxaana la dabaaldegayay habeen iyo maalin iyadoo calamada ay rabaan iyagu ay surteen magaalada dhexdeeda arintaasi waxa barbar socday kulamo ay lahaayeen waxgaradka deegaanka oo ka shirayay arrimahooda laakiin Soomaaliland waxa ay geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay inaan reer soltashan waxaana ugu yaraan 5 shir si toos ah u joojiyay ciidanka Soomaaliland sida midkan taliyaha Soomaaliland ugu magacaaban gobolka Sool uu ku gafeeyo guurtida deegaanka oo markaasi ku shirayay hotel kulan oo magaalada Laascaano ku yaala arintaasi waxa ay dhacday dhowr jeer laakiin waxba uma dhimin halgankii bulsho ee ujeedka lahaa halka kolka ay marayso ayaa waxgaradka deegaanku saareen guddi ka kooban 33 xubnood kuwaasi oo ka arriminaya aayaha ummadan iyadoona ismadu guud ahaan ay soo dhaweeyeen arintaasi ayaa qudhoodu ay ku ballameen in ay shir ku yeeshaan magaalada Laascaano kaasi oo looga tashanayo danta guud ee deegaankan
guddigii la saaray oo kulamo dhowra yeeshay waxa ay soo saareen go'aan bulshada u riyaaqday Somaliland uu quusgooyay in ay ka baxaan ciidamada Somaliland ee aan u dhalan deegaanka dhulbahante iyo fiqshini maadaama aysan ku imanin rabitaanka shacabka si loo helo nabadgelyo daris wanaag iyo wada noolaansho xilligan waa galab bilowgii halganka waxa laga joogaa 20 casho markaas oo aan tagnay magaalada Laascaano wax badan waa naga horeeyeen laakiin sidaan ayaa jawiga magaaladu ahaa maalintii aanu nimi galabtan waxa soo gaaray magaalada Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofa Durraan oo si milgo iyo maamuus loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool garaadka iyo waftigiisa oo ka soo kicitimay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa hadal ka jeediyay goobtan oo loogu yeero fagaaraha shahaadada waa halkii lagu dilay ilaa 10 dhalinyaro ah oo dareenkooda cabirayay sida argadan ka muuqata bulshada gobolka Sool waxa ay ka dib saaristii ciidanka Somaliland bilaabeen in la tirtiro raad kasta oo maamulkaasi lahaa waxaana goobihii faras magaalaha lagu sharaxay calanka buluuga ah ee adduunka caanka ka ah kaasi oo lagu bedelay midkii aan ictiraaf ka haysan qof waliba oo Laascaano dhex maraya maalintii aanu nimi waxa uu wataa calanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ama kan khaatimo waa hadii uusan labadaba sidan bandhiga buluuga ah waxa uu ahaa fagaare ay maalin walba isugu yimaadaan dadka deegaanka oo wata calanka Soomaaliya iyo kan khaatimo laakiin maalintani waa mid gaar ah waa soo dhaweyntii Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac oo Eliyatu isqabatay maalinta dadka siyaasadda oo dorsa waxa ay ku tilmaameen in ay tahay maalin gobolka Somaliland uu ka dhacay gobolka Sool subaxdii horeba dadku waxa ay ku diyaar garoobeen halka ay ka soo gasho magaalada wadada garaadku ka iman doono garaadka iyo waftiga ballaaran oo la socda ayaa waxa ay ka soo tallaabo qaadeen deegaanka Saaxdheer ee gobolka Sool iyaga oo soo maray deegaamo ay ka mid tahay degmada Kalabayd dalkan waxaale dad kale taladiisa cid kale ugama ogolin nin kale inuu ka taliyana ma ogolin safar dheer kadib waftiga garaadku waxa uu laaska soo gaaray xilli gadiid ah iyada oo loo tuban yahay soo dhaweynta haliyay hadalkiisu cad yahay oo aan aragtidiisa cidna ku raali gelin ina waran cadow adiyo tolka waxaan idin leeyahay wixii aad aabbahay 60kii ka diideen la yaad garaad ka tiraadeen maanta anaa idinku la yaa isa anaa idinku intii aan waftiga magaalada loo soo galbin ayaa garaadku waxa uu mahad celiyay bulshadii soo dhaweysay kadibna waxa la soo gaaray dhanka fagaaraha shahaadada halkan ay ka socotaa soo dhaweynta Garaad Jaamac Garaad Cali oo 15 sano kadib maanta magaalada Laascaano soo gaaray garaadku waxa uu Laascaano ka baxay 2007 xilligaasi oo Somaliland ay halkan qabsatay laakiin kadib kacdoonkii shacabka magaalada Laascaano ayaa halkan waxa ku ballamay ismada gobolka Sool oo kulan ku yeelanaya kaasi oo looga arisanayo arrimaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waa dareen shacab oo sidaas u muuqda maalintii saddexaad oo aan Laascaano ku sugannahay waxa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay Garaad Cabdullaahi Garaad Saleebaan Garaad Maxamed isaga iyo wafti ballaaran oo hogaaminayo garaadku waxa ay ka soo kicitimeen degmada taariikhiga ee Taleex maalinta waxa kulamo salaana yeeshay isimada sida Garaad Jaamac Garaad Cali iyo Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil waa hawl muddo la sugayay oo maanta timi kacdoon shacab iyadoo shacabkii kacdoonku ay fagaarayaasha ku sugayaan go'aamada isimadu guddoon sharci